أنا وحلي ده حريق حكى المحاج جوجان رحمة إيمان كيف ده بعد ما سنت رحمة داي وحن كهاد ليني أقوانست إله مهم أنت أنت إله رمع سنة أقوانست إله يعني اسكت ده بتحني سهر أصلا شكني إله وحروا إن عن رميسنا مرك عن إسقى رميسنا مرك إسقى رميسنا بتبعده لنا إله وحروا إن عن رميسنا مرك عن إسقى isku halayno inaan ahaan doono ku badbaadi doono sababta asaga horta waa in asaga ku badbaadina anaga waa in horta rumaysanaa wixii dhan waan soo sheegnay waa aragtay rabbiga saraakiicidiisa wixii dhan marka ilaahay suu badbaadina ilaahay wuxuu inaan rumaysano markaan rumaysano waa badbaadi doonaa markaan badbaadnana maxaa la yidhi ilaahay wuxuu leeyahay inaan rumaysano marka aan isaga isku halaynayno inuu ahaan doono badbaadiyahayna inaan rumaysano waay marka isku haleyno marka asaga aan rumaysano muxuu asaga ahaanayaa badbaadiyahayna laakiin hadda anaga rumaysanin hadda dhibaatadiisa u dhaceyna tama yaa ku badbaadinayade inaan rumays la timaado wax kasta inaan rumays la timaado markaa rumaysatidna waa badbaadiyahayna saasoo kale goorta asaga anaga rumaysana maxaa leeyahay goorta anaga asaga rumaysana وأوجي إن أنا رميسانة قارتان رميسات كانوا وأركو مركو رميسات كانوا وأركو أيو كويري مركو رميسات وأركو أيو كويري كوي حنو صنعتا واد بدبادي واد عافي مادي ومركز سيدنيكي دبوردا إن دا ويلكي داودو يسوق مركز حيرتي وحدان إن إسكال عفاني ربيك ربي لك وأستاغ ونقضي محو ربي أركو muxuu rabbiga rabaa inaan rumaysano anaga markaan rumaysano markaan rumaysano ilaahay qalbigan wuu arkaya asaga wuu ogyahay markuu arko in anaga asaga rumaysanahay markaasuu istaagaya yaa waay qofka rabbi ciise de ma waxaan ka wadaa yaa dhahay istaag waxaa dhahay ilaahay muxuu rabaa marka hore inaan rumaysano rabaa laakiin markaan rumaysano goortan rumaysadkaadi u arko markuu ilaahay rumaysadkaada u arko ayuu markuu ilaahay arko rumaysadkaada ayuu ku yidhi kaali dembiyadaada waa kaa cafiyey ama kaali gacanta u saara rabbi ciise laga wadaa markuu ku arko inaad rumaysad tahay ilaah waa ilaahay wiilkiis kuu soo diray sama aabbaha markuu wiilkiis kuu soo diray wuxuu ku dhahay rumayso wax kasta dhib ma arkaysid wax kasta asagaa lagula heshiiyey ilaahay wiilkiisu kula heshiiyey programmadii hore soo sheegnay marka waxuu leeyahay rumaysada oo timi soo maha tii hore ogow iska fiiri waa aragtay sarciidii aragtay wax kasta waa aragtay kabacdi maxaa ku xigo marka waxaan dhan aragtay waa inaad rumaysad la timaadaa marka aad rumaysatidna ilaahay wuu ogyahay inaad rumaysatay kabacdina waa ninkii noolaha ahaa aamin buu lahay horta rumaystu yidhi markaa rumays la timaadaan markaas waa badbaadaysiin marka rumaysadka marka anaga inuu naga arko waay markuu ilaahay marka waxaa lagu leeyahay markuu rumaysadkiina arko wax kasta waa naga cafinayaa marka rumaysadkeena u arko xanuun kasta waa ka caafimaadaysaa hadda tusaale ahaanaa soo qaadanayna marka ciise masiix oo socday ayaa waxaa kasoo daba ortay nin oo noola ah ninkii ina daawudow kaale indhaha ii furu dhahay marka xirtii way inay aragtay waxay dhahay iska dhaaf marka mayuu dhahay ilaahay wuu u soo noqday rabbiga muxuu ugu soo noqday wuu ogaa ninkaa qaylinaya gudihiisa rumaysada ku jira rumaysad gudihiisa ku jiro dartiis inuu usoo istaagay uu yimid oo dhahay rumaysadkaaga aa ku caafimaaday rumaysadkaaga ayaa ku caafimaaday rumaysadkaaga ayaa indhaha kugu furmay rumaysadkaaga ku sarakaca nin kalena inuu kasoo daba ardu uu yiri rabbiyow kaale gabadhayda oo xanuunsan gabadhayda oo dhimatay mid wuxuu dhahay gabadhayda xanuunsan qofkaas mid wiilkiisa oo sheedhaabaan ku tumanaya oo ruux wasaq ku jiro ayagoo ordaayo oo rumaysad la ordaayo u keenan markaas rumaysadkaaga ku caafimaaday rumaysadkaaga gabadhaada ma dhiman istaag gabaray wax cuntaa la siiyo dad waa oo isku haleeyo oo rumaysad lahaayeen ma shakinin ma shakinin waa rumaysteen waxaa lagaa rabaa inta dhan uu ku gooban yahay akhbaarka wanaagsan waa inaad la timaadaan rumaysad la-aantiis qof adiga oo يعني كوسينا ما أبالجود سكولي أبالجود كذا مركا رميستيد وعاف ماذا جاجدا كبحسا لبكا كبحسا عريريا كبحسا هدي أتا الوسو جماعة أو
إلا ما أنت قال مسيحي رميسته بقارة كوب أنت ذا وحكة تيريسا ما مسيحي رميسه لك وحكة تواليدا رجال هذا هذا نبكي ما رجال هذا وكبعي صار دبعته بني آدم أتى إلى إلهي ما دايكو إلهي كو أصل أمين كوي كلا وأسكو مت تاسرت إنه أوجاتان واي مسيحي قلت ما هذا جونية ده بالغسينة معها قف مسيحي آمين العقل ومسيحي هذا وهذا قف كست برنامج كفير صدا أم قف كست أخبارك ونكسن فير صدا اسكو قلدنا العقد واحدة ما نسوي قف آمن لي أم قف إله وشقينا أو مسيحية أو هالعقل ووصية العقل ما جت هذه واشقة يست هذه إله هذه آمن سنت أديست العقل متمطق على صوت هذه كو تاسوينا مسكح هذا كشقي سيسا أفهمته قف كستو مسيحي وحي ربا إنه قلتو جعلك يواجبك إله وسو ديبتي هذه تانك أسأل الله سو ديبي إنه جارسي فرتين تا دتك كفك dadka fog ama dadka meelaha dheer jooga ama ku dhawaado in akhbaarka wanaagsan qof kasta uu helo waa wanaaga igalka waa farxad marka ma aha wax anaga oo taha masiixiinta lacag la siiyay ma jirto ari ilaahay lacag dad ku sii kala adag noo sheekay ada lacag qaatid ilaahay waxaas shaqo kuma laha ilaahay ku abuuray dhan isku wada mid ilaahay kan xun kan wasaqda ka shaqeeya kan dambi ka shaqeeya mid kasta ilaahay wuu jecel yahay إلهي وحسوا يا إني توبت كينان إني صون نقدان لكن ها هذا كانت المسيحي وحش شيء العقل الأساسية أمالينا ما أقل العقل الأساسي ما أنت نود الدلميسة ما جرتو الدلنج أنا يبقى بصابت أنا واحد فاهمي واي فاهم إذا كان فاهم ويصير أنا نقول كلفتي إنا ما أنت وحنا نيشجنا واي أنا جنا وحنا قصبايا جعلك إلهي وجعلك إلهي أنا مركورنا ليري تجا واحد مقشين قف كستو مسيحي أديك بالودر أديك يدو كلا نوع قف كست هدية إلهي سي هدية إله وكلا نوع بكرة أديك تانكي إن دم جودنينه يواجب كي ربي نودي يفتحق إيش يوحي وأنا جنا لفري وأديك تانكي واحد روح قدوس كان كحوجي سنة واحد أركتنا مقشين تجا مال كستو أوفق dad baa inay gudahooda ka tageen meel ku dhibaataysan oo dhulka qalalo dhibaato ama gurigiis wixiis joogan ama meel gaajo ah ama meel yaani abaar ka jirto taagan maxaa kalifay hada ilaahay waxa jaceelka ilaahay rabta inay ku keento ku noolatan dhulkaas inuu barwaaqoobo oo qalalay inuu dhulkaas barwaaqoobo aaminka adi aaminta ilaahay hatta dhulka ku noosho barwaaqoobaya oo 10 sano duu bixin ata inuu soo baxay waa qorantay sababta badbaadada kugu jirta noloshaada caafimaadkaaga nabadaadi asaas hadda meel xabadaha ka dhacay hada joogta ata hada rabbi ciise aad aamintid waa ku jirta waqti horta qof kasta waqtigiisa waa qorantay laakiin ma aha badbaadada inay tahay janna lagu wacay kaliya badbaadada waxa ku jirta nolosha adduunka uga baahan tahay maanta waad maadsantahay waxaad hada ilaahi qof kasta uu jecel yahay adig kaliya ay naftika aday ma jeceshahay cadowga ha aniga waay rabbi wuxuu ilaahi wuxuu ku leeyahay haddii adiga aniga cadowgay waan jeclahay waay haddaan dhoo aniga kuwa ani jecel kuwa ii dhow familka ilaah aan jeclahay war waa kuwan qalad waay ilaahay ataa ma ogolaanay waa ilaahay baa wuxuu ku yiri inta dhulka joogto dhan wada jecel yahay haddii la dhihi lahay dadka oo dadka qaarkood u qabaan wax yar taabanaya dadka qaarkood u qabaan dadka masiixiinta lacag la siiyay kada ad ilaahay muxuu lacag ku siiyay ilaahay horta waa ilaahay ilaahay waay oo ilaah kale ma jiro oo ilaahay waxa way adil leeyahay jidka aad socotid marabta jidka runta nolosha waligeeda hadda aad jidka runta nolosha waligeeda waa ciise masiix ilaahay ugu tagays ilaahay qof kasto bin aadam meesha qof kasto wuxuu shaqaysto warteelaya qof kastan waa jecel yahay haddaan dhoo qofka aniga necab waan nacbanahay maanta ma dhahay qofka aniga necba ugu jecelahay waayo ilaah baa i bare ilaahay wuxuu yidhi hadda adi qofka ku necab kaliya aan necbanaatid qofka adi ku necab aan necbanaatid ajeclaad qof adi ku jecel oo qoyska ilaahay ah familka ilaahay ah maxaa faa'iido ah waa asaga waa jecel yahay in aniga jeclaada kuwa i necab aan cafiya aan yani ilaahay waaba noo sheegay hadda aniga aan jeclaado ilaahay wuu noo sheegay sababta ah wuxuu yiri kuwa adiga ku necab kuwa adiga ku jecel kaliya jeclaan kuwa adiga ku necab jeclaaw cafi hadday ku inkaaraan u ducay hadday dharbaxa kugu dhuftaan kan kale u dow hadday shaatiga kaa qaataan qamiiska ugu dar wax kasta kugu sameeyaan
inaad cafisaa u duceysaa jeclaataa ad yacni wax kasto aad wanaag aad tusi karto waa inaad tustaa intee ka hesha adi xoog ku jeclaatay kuwa oo cadowga ah xooga waxaa waaye ruuxa kuwa qaduuska ku necebtahay kuwa ku dhibo waxaa waaye xooga waxaan ka helin ruuxa qaduuska ruuxa qaduuska wax kasta ku baraya waa ruuxa runta waa ruuxa jecelka marka ilaahay wuxuu yidhi ha jeclaanina kuwa idinkana jecelle haddii kuwa anagana jeclaano maxay noo taraysaa maxaa ka helaynaa isheg maxaan ka helaynaa wax aan ka helayno ma jiro marka waa inaan jeclaanaa kuwa anagana necebna waa inaan cafinaa waa inaan hadday isku dayaan ataa inay nasoo weeraraan ay dharbaaha dhinaca noogu dhiftaan waa inaan dhinaca kale u dibnaa waa inaan naga ku cafinay yacni si kasta iskugu dayno inaan tusno wanaageena iyo dulqaadashadeena ma jiraa mar qof oo adig soo weerara oo maxaa u jiba aftaada markaas horta waa jiraa wax weyn ma arkin laakiinse wax yar waa arkay walaaley waan ku baryayaaye ilaahay aan kugu dhaarshay garkii wax isku keejijiida marka waxaan ku dhahaye waa ku jeclahay ma iskay dhaafi kartaa ma rabo inaan gacantayda aan ku gaarsiiyo sababta markaas waxay tiri maya waxaan ku dhahay wax ala waxaa tiri waa ku cafiye ani aad ma kala tegi karnaa sababta kumaba qanacsani hadalkaaga ra'yigaaga wadataa kugumana qanacsani waxaa sheegaysa adaa isdaalinaysidee marka waxaa waaye jidka iga leex horta aan mare حتى قعنت هذا مقبلين وحنا كنا كبريا جد كان كله أنا كود عيناي يا سيدا رالك أجد كإيبانيس صبت قسم مجرم ماشان مكسونته ما يقول هذا بلاوكي بلاوك حقوق كبريا يا ولا لا إلهي عذاب السجلنا يا إلهي كبق عذاب تسكيلالي وإلهي وقف عنا تاي وقف أذي كافي عن مالها بس أنا كود إن أنا في عنا هذا قرأت وناق أدي وقرأت وروح قدوس كواي ما هو وناق أسكعرت أمرك حنا كنا إن يقول ديت أم إن يقول لي حتى لبضس أنا بنا لكن أنا وحبكم ما يسوى على اللي حرت ده من ربنا قعنتي أن كنت أبسي واحترام ولا تنمي شرف هيك مدنتاي حاجة لا حق إذا قص ليسو الناس يقول لها مركب واحد فاهم إذا ما بروح قدوس كشقي هبقى هاتي maalin waxay igu darneed mid aan iskoorin mid aan may wax u sheegay is dhahay qof kale miyaa marka wax u sheegay igu keentay markaas tiri ani ma wax ii sheegaysa ama anaa kuu sheegay markaas labadeenaba markaas tiri qof arkay inay ila taagantaa marka meeshay waa istuska bilowday ila marka hore caadi u taagnaa aniga ay rabtaa miya aniga hebel ma iisoo istaagday inta haya waxaad sameeyay ku dheh dagaal ma rabtaa adila iska dhuf meeshaan saarti iska yeel marka iska hor istaagday waxaad rabtaa sameyn kartaa laakiin aniga gacantii kuma qaaday dagaal aniga mawliga ma dagaalamin dhahay mana rabo inaan qof la dagaalo waayo aniga ilaahay ma barin inaan qofka arsado ama inaan qof dharbaaxo aday ku taala haddaa rabtid iska bax haddaa dagaal rabtid anima kula dagaalay hadda kor waxa yimid ana hadalka wanaagsan sheegay gabadh iska baxday ana hadalka wanaagsan sheegay waxa yimid wiilaan in oday weyn anaga meesha buuxin dad madax joogan dad kasta jooga dadka ilaahay u shaqeynaa qof kasta qof oo ixtiraam leh joogo inuu yimid wuxuu qaaday kitaabkii quduuska saano dhahay been waxaan wada been waxaan dhahay geesnimada asaan ku sameynaysa maxay tahay ceeb soo ma aha inaad ixtiraamka intuu ka aaday يعني إلهي هذا الكيس آمن كيس إن قفك إن أولت ميت قفك وقص بقى منا قف أولت من ساتر هذا وعلى في عيني هذا مركز يصير ما هذا لنا قف وحوجي استعملها مركز سوق تاجناي أنا وحنا مسمين كرت عيب وايد مركز يصير كان واي كذا واي كان واي إلهي صار ما إلهي كان ما وحرموا إسكاش شيء حتى عدنا نقول ما أكوسوا لعونا هنا داو يا وقت مهتسنتين فصح يرى ينقلينا وأنكوسوا لعون تونا برنامج كان الله شعصب عادة ما هي شوي مركا رميست كقاعدتين العقل أمر هرقشتي أيوة حجري because he created us وإحنا أجر سكة الأفهانت مركاسات وحلا الشاب بدينا he just wants to destroy everything ما حد ما ليس إلهي محو ربع أنت رحمة واضعة في المادة and I don't hate people because of it dadka cadaa oo akhbaarka wanaagsan loo sheegin aniga dhan farxada ku jira ruuxa qaduuska qofkan sidoo ilaahay
And the devil is the enemy of God. ما فكر ميا مستحمل الدنيا درين يرقى كل فكرتي balaaga ma yaa dhahday wax ma jiro si kale u fahanta markaas والله dhibaatadan waxaan ku leeyahay dib u soo noqo I got really sick at one point. waad xanuunsanaan jirtay adi marka oo rumaysadka qaadanaysi hadda waxaan ku soo laabanay barnaamijka nolosha cusub ku soo dhawaada Raxma iyo Iimaan Mahadsanid. ma santahay waxaan ku harnay aragna noo sheegays adi iyo qof kale oo isdaglanteen anagoo akhbaarka wanaagsan wadno miiskeena buugaagta noo buuxa oo kitaab buugaag dadka la qiiminayay cajalado iyo kitaabkii qaduuska saa u yaal nin odaya noo yimid ka bacda hore u arki jiray mid kasta inuu qaado waa dhaqalad wasaan qof wax dhahay malaba aniga marka maadaama qof oo dadkayga yahay oo ahaana anaa la hadlay waxaan dhahay nin hoosaan ceeb waaye waddanka joogtidba waxaad aaminsantahay lagama aaminsan meesha adiga ku soo dhaweysa ixtiraamka iyo sharafta iyo noloshaada wax dhan kaaga fikiraysana ma aha aaminkooda hadda adi aaminsaneen inaad u timaado aasaa wax uga sheegta adi hadda aaminsanta adaa aaminsan laakiin kastoo yar waxaa fiican in lais ixtiraamo markaas sheekadii sii wadnay markaas Ibraahiim laga sheekay Muuse wixii dhan iswadwaday asaa meel ka baxay way markii dambe adisu hadalku u waday hadalku igu badiyay sheekada markii dambe waxay in laga sheekay Ibraahiim iyo Yusuf Moses markii dambe wuu yaawasa waxa uu sheegay markii dambe xidha war adi waxaan inta ku soo baratay yaa ku soo baray waxa diidaysa kitaabka qaduuska waxa sheegaysid yaa ku soo baray dhaysid kitaabka qaduuska way kitaabka qaduuska aan meesha ka bartay adi markii dambe si fiican ay ku baxday laakiin markii xoogaa waa loo dulqaatay waan u sheegnay meeshii wuxuu ogaaday in waxaan ka hadlayno oo yahay waxa oo aqli bin aadanka oo yani saan u fahmay oo runta tahay oo isla xiriiraan hadalkeena oo runtan ku fadhiyo kabacdeen uu ogaado waxaan in iska hadal ahayn oo ruuxa qaduuska shaqeynayo oo Ilaahay run yahay naxariista Ilaahay dulqaadka u sameeynay asagana wuu arkay meeshaas ayuu ninkii Iimaan adi markaa tahay gabar Soomaaliyeed oo Masaaxiyeed arrimo oo dhibaatooyin mala kulantay Being a Somali Christian, yes, there have occurred some tough situations and discrimination, but I think there was a point in my life that it was normal, but by God's grace, it passed, and I don't hate people because of it. I don't hold grudge. I have forgiven them because I believe that forgiveness is the key to life. I'm not bitter, and I wish them the best. ودعيسا dadkaas oo kale Well, I do pray for them, but I also pray for myself that I could have the strength to forgive them. So I pray for both. waad mahadsantahay adigana Raxma ma wadacaysaa dadka qasab waa loo duceeyo sababta dadkan waxa ayaga ma aha waxa xun dadka ma aha xun waa shaydaanka waa shaydaanka ayaa ogoleen in ay dadkan ay qaataan ay shaydaanku oo yahay asaga meesha laga soo tuuray samada waay marka ma raba in dadkan aaminaan Ilaah saal adigay dadkii dad fiican waay shaydaanka waalay oo dhibaayo oo marka arko xana Ilaah qofkan qof fiican waay unkaaga waay laakiin shaydaankan waay marka saan ku dhahayaa magac Rabbi kaga bax nabadna ka helno marka waxaanana waan u duceynaa qofka inuu Ilaahay ka saaro ruuxda sharta oo aqoonsado oo yani in Ilaahay yahay Raxma dadka waa adigu nacab maxaa rablayd inta ku dhahaday waay dadka aniga nacab waay ma dhahay qasab igu jeclaada laakiin waxaan u sheegayaa anaga aaminkeena iyo kitaabka qaduuska ayaa anaga iskama socono anaga waxa anaga oo nala faray oo Ilaahay elabtiina siiyay sida Ilaahay qaduus yahay qaduus u ahaan waay Ilaahna ma dhin dadka caaya ka argoostada markay kelmadii dhahan u jawaaba anaga waxaan kelmad kuna afiya u dulqaata ana dhahay marka Ilaahay wuxuu na baray aayadan ayaa noo sheegayso Matthews 15:38 Matthews anaga aaminkeena ma aha
inuu macno inaan nacno cadowgeyna laakiin waxaan idinku leeyahay kuwiina maqlooyow cadowgiina jeclaada ilaahay muxuu yidhi kuwiina imaqlaaya codkeyga haddaa maqlaysiin cadowgiina jeclaada rabbi ciise dhe cadowgiina jeclaada waa ku wacdiyey xirtii ku wacdiyey cadowgiina jeclaada kuwa idin neceb wax wanaagsan u sameeya kuwa anagana neceb ina aniga asaga wax wanaagsan u sameeyo waa maxaa rabtaa maxaa jeceshahay haye ina aniga aan tusu waxa ani ahay su u arko wanaaga dadka masiixiinta wanaagooda dabeecaddeena wanaagsan ma anaga dabeecadda oo dadka karaahda dabeecaddeena waa dabeecadda masiixiga aan lagu qodbay maadaama masiixiga isku talaabta lagu qodbay anaga waa ina dabeecasana xukumo dhiiggaasana xukumo wuxuu leeyahay idinkana neceb wax wanaagsan u sameeya hanicina ya kuwa idinkani habaara u duceeya marka anagana habaaraan God bless you ilaahay noloshaada bedelo ilaahay kana ku siiyo waa ku duceey baxortaada ilaahay baraka dhigo qofku bini aadam waa dareen u leeyahay qof markuu ku inkaaro kadaba inkaartan laguma dhihin kadaba qayl laguma dhihin u duceeya waxa dhan soo gaabay waa soo dhameysay ya kuwa idin habaara u duceeya kuwa idin caaya ilaah u barya ya haye 29 maxay leedahay kii dhabanka kaa dharbaxa kan kale u dow oo kii maradaada qaata qamiiskaadan ugu dar marka anaga waana la soo bari edbinteena ku jirtaa maxaa kaloo nahay mid waliba wax kaa barya si oo wixii hadduu kuu soo celin waayata ha ka doonan baafi maxaa kaloo lagu dhahay waxaa kaloo lagu dhahay kuwa wax kaa qaata ha ka soo celinin ha ka soo ceshanin oo sidaas adiga u doonaysaan in dadka kale anaga qof inuu nuxumay ma jecelnahay sida anaga u doonayni in wanaaga aniga maxaa rabaa in qof ay wanaajiyo qof si fiican inuu ula hadlo waxaan rabaa qofka kale ila dhaqmo dhaqan wanaagsan lila dhaqmo waa inaan sidaasoo kale ayaga ula dhaqanaa sida ani jeclahay in loo dhaqmo lii wanaajiyo aan lii aflagaadeynin shakhsigeedii iyo bini'aadamadeedii iyo xurnimadeedii loo soo fargashan waa inaan ula dhaqma asagana wanaaga ani rabo waa inaan asaga u wanaajiyaa maxay tahay haddii aniga wanaaga raba asaga xumayna ma naqanayso marka daawadayaal sida anaga aad dadka idinka wax nii sheegaya oo yacni ula dhaqantiin ama aflagaada ama si kasta يعني وأركيسان مرة قفك بني آدم واي لكنse أنا waxaan leenahay waan jecelnahay waan duceynina waxaan leenahay anaga wanaaga idinka jeceshiina la jecelnahay wanaaga aniga nafsadayda isku jecelahay aan kula jecelahay marka ma aha anaga inaan argoosano ama dharbaaxada lagu dhifta dharbaaxada kale dhinac kale si okay laakiin ma aha in anaga ku dayano waxaan waa in anaga naqnaa kuwa dulqaata صح يا كو أتكيستا صح سيدا أفهم أذن الله شيء وحيال أو أذا قصوا مرت حتى صدق نوع لقى قاتم إهد مركزيتي هذه سيدا أنت كهج حوق دتك جعلات مركز دتك وحن كوسمي هذا وحير نوشك تم حدا أي مركزيتي يعني وحي واد على واد على مركز عي وحي إهد سيدا قفك ما نعذي إهد qorraxda taagan tahay qorraxda kuleelkeedii iyo yani wuxuu ahay waqti kuleel waxa maxaa dhacay markaas iyo maxaa lagu xumay markaas ma caruurta markii la qaatay xili waxa ku dhooyaaba xili waxay ahayd kuleel ah oo iftiinka iyo nuurka saa u jiro laakiin maalintii ani waxay la naqatay mugdi hay caruurta yaa qaatay caruurta waa la qaatay dadkii dhalaa qaatay iyo dadkii qofkii dhalaa qaatay laakiinse أنا حلي جالس حلي مقدي هاد حلي أرجنا ويلا هاد حلي وحكست بين آدم كو أرجنا ويلا هاد حلي جالس إفتينا يجري إفتين كاتم أركين مقدي بيلاها قد عر الصعدة وبيلاها لكن أود الروح قدوس كأود يسي ويا أبا يسمى ذا كوجر روح عفية وإذنك نقام هذا سأني كوين عفية مرك إلهي هذا الإلهي قصبي روح قدوس كأي بدلي نفسديدا sababtoo ah ina cafiyo way ahayd ana soo cafiyo si aniga balanti liisiyana waa arkay
laakiin bilaawkii adeeg ma kugu ahayd aad u adkayd maba arki karin cunug socdo habar cunug wadato iyo gabar iyo wiil daadaas la eg ama gabadheeda gabar la eg markaan arko dad wato wax qof kastoo socdo kuya umaleynaya ayaga qaladkaba qof kastoo socdaa wada umaleynaya aan saas u figi jiray qof kastoo cunug wato kana ka dambeeyay shaydaanku waa ku wareerinaya laakiin marka dambe waxaan dhahay waa qoranta inaa kii isku haleeyo inaa isku haleeyo rabbigayga dhiigayga rabbiga dhiigiis ii bixiyey rabbiga kafaargudka bixiyey rabbiga waqlalka ii bixiyey asaga inaa isku haleeyo sababta rabbiga yani ani marka hore waxaan arki jiray riyada iyo waxaa ilaahay igula hadli jiray maalin lay tus hadda saan ku socota la qof kasta cadow iyo xaasid u aragta maxaa faa'iido maxaa kala duwanaa anaga ayaga aa rumaysadkayga marka rumayso kuwa lugaha hoostooda imaanay waxaa dhihi doontaa saasina ofisiya kuu koriya yaa ii koriya ciyaalkan intee ka yimaadaan kuwaan saa u dhadheer aa dhihi doontaa dulqaado rumaysadkaaga ah waa la dhaha ani ayaga maxaan kala duwannahay waxaan kala duwannahay aaminka marka markii dambe rumaysadkayga ayaan gacanta u horsadan soo qabsada aan dhahay may waa ilaahay noola isku haleynaya way ku soo laabteen sida u fahmay ilmaha waa ii soo laabteen sidii rabbiga yiri kor ayaad u fiirin doontaa waxaad dhihi doontaa kuwaan ayaa kuu soo koriyey intee ka yimaadeen kuwaan waa kusoo wici doonaan waxay ku dhihi cariiriyaan ku jirnaa boos manoo haysaa waa dhacda waqti xunay galeen waqtiga anigisa waqti kulul a u galay oo waqti kuleelkii aniga mugdi igu noqotay cariiri igu noqotay ya ilaa aniga aaminkayga iyo jaceylka ilaahay i rogay a kor ii qaaday ayaga khatar isku malaynayeen markooda hoosay galeen kabacdii waxay dhaqdeen sidii waxaa dhacday inay usoo ordaan banaanka ay dhahan yacni aawey boos manoo haysaa cariiriya meeshaan ku jirnaa markaas waxay igu noqotay degdeg hadda awood ani leeyahay hal sekan kusoo duulin karo kusoo duulin lahaa laakiin ilaahay wax waa i tusay maalintaasna rabbiga waa isku kay muujiyey waxay i tusay hal salaad aan tukaday aan bari saan samada u fiiri ooyinta saan iga dhacayso ayaa ilaahay samada ka maqlay hal maalina u dhaxaysa maalintii la soo wacay iyo maalintii yimaadeen hay hadda adi iyo caruurtaadi say isku tihiin aniga caruurteedu waxaan ugu dhex jira jeceyl inay mar bixeen ata shaka iga jiro ya marka ilaahay saasuu ku ilowsiinaya sidii naagaha markay uurka leeyihiin 9 boos u soo wadaan tabcaan ma soo baxaya waxaan se ku soo baxay caloosha inta la eg markay dhalaan waa iloowayaan ilaahay naxariistiisu waay ilaahay dadka waa wada sameynaya kabacdi ani sidoo kale wixiga dhanba waa ilowna ayagana inay maalinba waddan ka maqnaadeen ataa maba xasuusano waxaa waaye raxmadda ilaahay iyo qofka ilaahay isku halay saasoo kale waay marka ilaahay isku halaysid bin aadan cabsidiisa ka boodid yacni muxuu kaa qaadi karaa hore usoo sheegnay barnaamijkeena hore bin aadamka oo adiga inuu wax ku gaarsiin mooyaane naf inuu kaa qaado oo ku ciqaabi kara cadaabta ma ku ridi karaa may ka nafta kaa qaadaya oo cadaabta kaas isku halay hore usoo sheegnay aniga isku halaynta ilaahay isku haleeyey oo aan markasta nacbanaan jiri qof cunug wato qof wiilasheeda wiilal la eg aan ku arko aan yacni si xun oo nici jirin ilaahay wuxuu dhaha cafiska aawe rumaysadkaaga aawe waxaan ku baray aawe waxaan kuu sheegay aawe wixii aan markaasaan dhahay ha raali noqo rabbiyow mid adig kaa weyn ma jiro mid laisku haleeyo ma jiro adaa isku ka haleeyey adiga ayaa ii maqan arrintan weyn hataa oo adig kugu xumeynaya hataa had waxay kuu noqotay markhaati fur tan hadda maxay noqotay markhaati fur maxaa ilaahay rabaa markhaati fur qof kale hadduu jiro oo dhibaataysan ama ka baqaya in ilmihiisa oo laga qaato inuu ilaahay u yimaado dhibaato ku dhacda ama dhibaatadan dhibaato ka xoog badan maba jirto qofka ilmahaaga adoo caano u doonatay bafar isuu lagu qaatay dhibaato ka weyn maa jirto kaas haddii saas looga gudbay intee ka weyn uu samayn karaa waad mahadsan tahay iimaan iyo raxm waad mahadsan tihiin barnaamij kale kusoo laabaneynaa daawayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijka daawanaysi waa nolosha cusub waan kusoo laaban doonaa barnaamijyaha kale iimailkeena waa kana nala soo xiriira